waxaan maanta isugu nimid warka ka soo yeeray wadatashiga Baydhabo oo aanan dhagahanaga ayna ku farxin waan ka soo horjeednaa xawaadle ugaas buu leeyahay soo jireen dhaxal waligiis ahaan jiray mid aanan hadda anagu aqoonsanayn oo aanan war ka haynin in hebela ugaas la yiraaho waan ka xunahay arintaasna isugu nimid marana marayso dawladda waxaas ka fiirstaan leenahay adduunka dhibaan ogeysiinayna marana marayso assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa cad yahay war cad way warkaan ka cabanayna waxaan ka cabanaynaa horta waa dawladda federaalka Soomaaliya oo si gaar ah ula dagaalaysa gobolka Hiiraan hadday siyaasad tahay iyo hadday maskaxiyan tahayna annaguna waa ka soo horjeednaa waxaan uga soo horjeednaa waxa ay ayagu doonayaan waxay yihiin nin soo xulida dambo ninkii soo xuli lahaayay meesha geysana xukuumadda ugu sarreysa taasaan diidaynaa waxaan rabnaa kursiga inna ka degan inna soo fuulo ayagu ha ku noqdaan hadday rabaan laakiin reer hebel yaa ka jooga laba gabdhood iyo laba nin ka joogta labada gabdhood iyo labada nin hadhow soo xula inay wax noogu dhisaan ma doonayno waxaan kaloon ka cabanaynaa ugaaska beesha xawaadle waa ugaas soo jirayna wuxuu degan yahay beesha xawaadle Itoobiya Soomaaliya Kenya koonfurta Soomaaliya intaasay degan yihiin hal ugaasayna leeyihiin halkii ugaas ayaa dawladda federaalku waxay ku dambaqda siyaasad ay ku ilaashanayaan danahooda ay yiraahdaan ugaas xasan ma rabnaa waxaan rabnaa mid kale oo annagana soo celinaya annaguna waa diidnay intaasaan ka cabanayna waxaan u sheegaynaa beesha caalamka urur goboleedka igad ummadda islaamka Soomaalida wax qaybsanayda taasaan u sheegaynaa ta kale waxaan leenahay beesha xawaadle nimana ku jira afar la yiri oo ku jira oo 135 nin ku jira 135 nin nimanka ku jira waxaan leenahay wixii qaldamay waa la saxan ku ogeynay saxan sugayna nooma qalmaan malihin intaas ka badanaan leenahay in wax naloo saxan rabnaa ayaga ruuxooda ha naloo keenaan leenahay salaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliin wa ba'd walaalayaal maanta waxaan halkan iskugu nimid inaan si cad u qeexno hal eray oo kaliya qaramada midoob iyo igad iyo beesha caalamku annaga waas noo magacaabi mayso annaga waaskeenu ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble ugaas kale ma qabno afartan nin ee naloo ku daray odayaasha 300 iyo xoogaaga nin ugaas ku magacaabana ku jira la yiri waxba kama jiraan waa been ninkaasi waa islaaw waa reer ugaas laf kamida waa islaaw mara fariisan kariyo kursigaas iskale ugaas xasan kursigiisa cid ku fariisan karta ma jirto waxaan cadeynaynaa marka beesha caalamka waxba noo magacaabayso dawladda Soomaaliyeedna waxba noo magacaabayso ugaasku waa dhaqan soo jireen dhaqankaas ayaana ku shaqeynaynaa muhiimadeeduna waa sidaas waana inay shaqeyso walaalayaal waxaan meeshaan isugu nimid anagoo beelweynta xawaadla oo degan gobolka Hiiraan Itoobiya iyo Kenya inta ka dhaxayso waxaan maanta fikirkeena ku cadeynaynaa oo aan hoos loo lahayn oo aan cid aan uga gabanayn oo cid aan hadii la kuuriyo aan barjilaac u raadinayn waxyaabaha ay dawladda xasan sheekh wada qaadamayno ma qaado doono garabka taabashada iyo beleelaqada iyo hadii la kuusimada musuqmaasuqa korruptionka Soomaaliya lagu dhaxwadana waa ka soo horjeednaa annaga ugaas waa leenahay 695 sano ka hor aan ugaas yeelan ciise waana u horeeyay 1322 ayay ahayd taariikhdaas iyo maanta ugaas xasan ugaas khaliif ugaas roob la joogo in nin ugaas tahay leeyahay xawaalo dhaqankaas ma leh shirka Baydhabo madasha Baydhabo waxa ka soo baxay ee ugaasyada lagu magacaaba ee nabadoonada lagu magacaaba ee wareegta dawladeeda dhaqan Soomaaliyeedna maaha mid islaamna maaha dawladda xasan sheekh waxaan ugu baaqaynaa oo uga digaynaa يوم نسكور كين ومدة سومالية يوم حسن ومدة سومالية سكور كين بلغة هجوج بلغة وضاه أدي أنت وركاس أدي وحلاقة قبوي أو كأنك حوالي ما يلاقي سوق قادوي أو باش عالم كودا جنولا وايد أو دولة الصومالية كودا جنولا وايد ودت كإسلام كهم مغلا كودا جنولا وايد وأنا نولاجر وأنا نولاين وأنا كتشنينا وهذا تشجع لو تشجعنا أي بايدابو أنا كشركة واقع دعني وحنا كوقع أنا صاب جرت dadka meesha isku tagay oo waa la soo ansaxilay oo 135 annaga waxaan ku lahaynay waa qaadacnay kuma jirno shaqana kuma lihin sababtu waxa waay annaga waxaan leenahay dhaqan soo jireena oo soo jiri jiray ugaasaan leenahay dhaqankaas waxa hogaaminaya ugaas qolo walba waxa uu hogaaminaya ugaaskooda hogaaminaya ma han beel Allah dad laga soo qabsado
maray gabdha soo qabsadaan ay shirka ku soo daraan ay yiraahaan hiiraan ku baabiinayna iyo maray nimanka soo qabsadaan waa ugaas hiiraan ku dirin ay yiraahaan dawladda federaalka iyo waxa la jiraaba intaasay wadaan mana noo qalanto waxaan leeyahay shirkaas anagu waa qaadacnay waxa laga soo qaaday waa qaadacnay waxaan ku lahayn iyo dhaqanka Soomaaliyeed waxaan ku leeyahay dhabo waa ka qaadacnay ku jira ayaynan maxkamiyada reer Hiiraan aysan ogolaan reer Hiiraan waxaan leeyahay dalka maxkamiyadu ku jira iigad sideedaba waxa loo abuurtay abaaraha inay iska kaalmeystaan ee political ambition inay sameeyaan ma balahaynba ko iigad waxa weeye dawladda wax ka kooban oo waxna isku darsan karin waxna wada wadaagi karin baan nahay iigad dawladaha ugu waaweyn dalkeenni iyo dadkeenni baa ku maqan United Nations Security Council bay taala hal koorle iyo gabartii madaxdan intay soconayso dal Soomaaliyeed way dalka sumadiisa erayga federaalka la yiraahdo dalka maxkamiyad gelinaya miidiyo ka socdaa wax la ansixiyay malaha saxaafadda iyo dadka wax qorayaba waxa horta ka codsanaya inaysan federaal warqadooda ay soo ku qorin balse ay xaq u leeyihiin inay qoraan jamhuuriyaddu waa shabeelka calankuna waa sumadda dalka arrada ayuu culeyskeeda leeyahay waxaan qaadacayna oo ka soo horjeedna oo diidanahay shanta gubernatoore oo Baydhabo warqadda ay ansixiyeen oo 135 ah Hiiraan ugaas buu leeyahay ugaasiyay leeyihiin waxaan dhaqanka ugaasyada aan soo marinna meeshaas corruption iyo laaluushka ka samaysan iyo kuwii hore dalka maxkamiyad u geliyay in ay raaci doonaan ama ay wax noo ansixi doonaan ayaan ka soo horjeednaa waxaan leeyahay qofka bini'aadamkaasiisaba sharaftiisa ayaa wax walba ka muhiimsan lacag haddii aad leedahay iyo sharaf haddii aad leedahay iyo wax walba aad leedahay waxa ka muhiimsan waxay tahay dhaqanka hawaale wuxuu yaalaa Hiiraan waxba ayadoo la leesan tirin waa loo jeedaa arinta meesha ay ka qasan tahay waa dhibkii iyo rafaadkii iyo hoosgeliskii la waday ayaa hadda socoto nimanka siyaasadda ku muxuu ahaay dabaqaya dhaqanka waa inay joojiyaan muhiimadda waa dhaqanka ugaaskeena anaga waa ugaas xasan ugaas khaliif ugaas roble ugaas kalena xawaale ma laha waana ka soo horjeednaa waxa laga wado Baydhabo iyo dawladda federaalka arinta ay wado waa mid aan ka soo horjeedno mana u dul qaadan doono waana qaadacnay waxa la isugu yimid beelweynta xawaale isugu timid waxayna ka tashanaan arrimahooda ha ahaato horeyaa looga warramay waxaan ka fiirsanahay beelweynta xawaale arrimaha ka soo yeerayo dawladda iyo dadka yacni maasuq waxa Baydhabo lagu soo aasaasay waxaan qaadanayna aan qaadan doonana maaha waxa kaloo leeyahay ugaas waa 19 ugaas 20 asigaa ku ah 19 ugaas oo xawaale soo maray kii 20 kan ah waxaan leenahay dadka isqoraa oo meesha isgeynaa oo asugu aan la geysan waxaan leenahay ha ka joogaano yaan ummadda lagu kala dirin yaan colaad lagu abuurin waxaan leenahay maanta yacni beelweynta xawaale hadday joogto Itoobiya iyo hadday Kenya joogto iyo hadday geeska Afrika joogtaba ugaas xasana ugaas u ah isku yimid dhibaatooyin iyo mataqaana warqado go'aan oo ka soo baxay magaalada Baydhabo ay ku diidanayeen iyo waxyaabo qaladaad oo hore ay dawladdu u samaysay warqadan ayaa soo qoreen warqadan waxa ku qoran ku socota wakiilka qaramada midoobay urur goboleedka IGAD dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha daneeya arrimaha Soomaaliya ujeedadu waxa weeye diidmo go'aanka ka soo baxay magaalada Baydhabo oo ku saabsanay dadka ay soo saareen liiska ay soo saareen qaladka Soomaaliya waxay baryahan dambe soo ifbaxayay in dhaqanadii soo jireenka ahaa la baabi'inayo si dhibaatooyin looga abuuro dalka iyadoo la doonayo in dano gaar ah lagu fushado dhaqanka iyo siyaasadda waxaan halkan ka cadaynaynaa in beesha xawaale leedahay dhaqan soo jireen ah muddo 690 sano ah kaasoo ka soo bilowday kowdii bishii 11 1322 milaadi laga soo bilaabo ugaas ciise wahaan iyo ilaa iyo laga soo gaaro 11 bishii 11
2016 oo ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble xilka uu la wareegay ugaasnimada xawaadle ugaaska lagama qaado xilka waa uu dhintaa beesha xawaadle mal yeelato laba ugaas beesha xawaadle waxay degtaa Soomaaliya Kenya ilaa Itoobiya waxaana ugaas u ah ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble dhammaan waxgaradka beesha xawaadle sida odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta aqoon-yahanka haweenka dhalinyarada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxay go'aan ku gaareen qodobada hoos ku qoran waxaan cabaaraynaynaa si toos ahna uga soo horjeednaa liiska ka soo baxay madasha wadatashiga qaran ku saabsan 135 taas oo aan lagala tashan ugaaska beesha xawaadle wax kastoo aan lagala tashan ugaaska beesha xawaadle oo ka soo baxa madasha wadatashiga ma aqoonsan doono 3 arrinta dhismaha labada aqal waa in ay ka timaado talada ugaaska beesha xawaadle 4 ugu dambeyntii waxaan dawladda federaalka uga digaynaa in ay faragelinta ka dayso dhaqanka beesha xawaadle